السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij toddobaadle gaar ah oo taxane ah kaasi oo aan ku qaada dhigno arrimo badan oo muhiim u ah bulshada iyo dhammaan dhegeystayaasheena barnaamijkan waxa idin soo diyaariyay hay'adda Agency for Empowerment of Pastoralists AFOP ayadoo kaashanaysa mashruuceeda Daris Wanaag dhegeystayaal kulanti wacan mar kale waxaan u gudagalaynaa barnaamijkeena maanta oo aynu ku falanqeynayno aragtideena ku aadan waxyaabaha inamideeya ka bulsho ahaan qowmiyadaha ku dhaqan xuduudada wadamada aan dariska nahay bulshooyinka dega xuduudaha dalalka dariska ee Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ah kuwa waxyaabo badan iskaga mid yihiin sida dhaqanka, diinta iyo qowmiyad ahaan marar badan waxa dhacda in waxyaabo aan muhiim ahayn in bulshadeena lagu kala qaybiyo halka waxyaabaha ay wadaagaan ay ka badan tahay waxyaabaha aysan wadaagin marka ay bulshada aqoonsato in waxyaabaha ay wadaagaan ay u badan yihiin waxay sababtaa in la helo bulsho isku wada tashata oona ku wada nool nabad taasi oo sababta iskaashi wanaagsan iyo nabadgelyo waarta nabaddu waa wax kasta oo nafta dejiya kana bixiya cabsida iyo qalqalka nabaddu waa degnaasho iyo naxariis nabaddu waa kalsooni wada shaqayn oo fursad ku siinaysa in aad ku dhex noolaato bulsho isku duuban oo dhib iyo dheefba qaybsada marka bulshada ay ogaato in waxyaabaha ay wadaagaan ay ka muhiimsan yihiin kuwa yar ee aysan wadaagin waxay sababtaa in la helo ummad isu horseeda horumar nabadda ayaa naas lanuuga leh nabaddu waa ifka nolosha nabad la'aan waa nolol la'aan waayo nabaddu waxa u baahan bini'aadanka xayawaanka iyo dhirta oo idil aasaaska nabaddu ayaa ah in la helo bulsho isfahanta kuna nool wada tashi iyo dan wadaag waayo horay ayaa waxa loo yiri gacmo wada jir bay wax ku qabtaan waxa hubaala haddii la helo bulsho isku xiran in la heli karo bulsho horumar gaarta si aan u falanqeyno mowduuceena maanta waxa waraysi gaaban aan la yeeshay oday dhaqameedka magaalada Mandera si uu inoogu faahfaahiyo aragtidiisa ku aadan waxyaabaha bulshada mideeya waxa uu yiri sida tan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد عبد الله يوسف وكمد دقميد مقالة تريمانديرا أما اسمه تريمانديرا مركان وجود جلس سؤال أد ويدسي برنامج كمدة هرتو سد حد جيس حدود كمقالة تريمانديرا وحيابها مدة وحاك كوا هرتو دين الإسلام كم دوني أنا قومي دهان سد حد جيسوت سد حد مقالة مدة حكتا و jinsiyad ahaan anaga Soomaalinimadii iyo wixii soo xiga waa amniga iyo ganacsiga ka dhaxaya saddexdan gees saddexdan wadan ee xuduudka leh gaar ahaan saddexda magaalo waxyaabaha kale oo dadka mideyn kara waxa kamid ah isdhexgalka bulshada sida guurka sidii yani waxbarashada kamid ah ilaa qof Mandera jooga balaxa wax ka baranaya qof balaxa jooga suufta wax ka baranaya marka waxyaabo fara badan oo dadka mideeyo oo yani saddexdan gees oo xuduudka dadka mideeyo ayaa fara badan laakiin qaasatan hadda inta ugu muhiimsan waa diinta islaamka oo anaga dhanba aan ka mideysanahay mid xigta waa dhaqan ahaan anaga dhaqankeeni oo maguuraanka ahaa oo ka dhaxay saddexdan gees ee magaalada suufta iyo Mandera iyo balaxa aad iyo aad u maasan tahay yani ganacsiga markii la dhaha waxaad arkaysaa raashin ka imaanaya ilaa Soomaaliya gudaheeda oo saddexda magaalo loo kala qaybinay ama Ethiopia ka imaanaya ama Kenya ka imaanaya oo ummadda isdhexgal qof balaxa jooga iyo qof Mandera jooga oo ganacsanaya waxyaabaha kamidka waa raashinka qodol daruuriga ah iyo hatta waxa kamid ah sida jaadka amal magaalada Tariimandera laga raraya ilaa dhanka Ethiopia gudaheedu aada ilaa Soomaaliya gudaheedu aada marka waa fara badan yihiin ganacsiga balse muhiimadda hadda ugu muhiimsan waa raashinka iyo jaadka oo iskiga goosha saddexdan gobol aad iyo aad u maasan tahay horta guurka dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu kamid ahaa waxyaabaha ummadda ama qabaa'ilada Soomaalida waxyaabaha isu keeno oo isdhexgalka ay ka bilaabato kamid ahaa waxaad arkaysaa gabar Ethiopia gudaheeda
wiil Soomaaliyeed oo ka soo guursaday oo dhankan Kenya gobolka waqooyi bari la soo dejinay ama gabar inta laga guursanay Ethiopia la geenay ama mid Muqdisho ama Soomaali gudaheeda bartamaha Soomaali laga soo guursaday oo halkan la keenay mid Mandheera laga guursaday oo ilaa Soomaaliland la geenay Soomaalida horta guurkeeda xad ma lahan waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo ummadda bulshada isdhexgalkeeda ka qayb qaato horta caqabadaas weyn ma jirto caqabadaha hadda yani ama dhanka xuduudada meelaha la maray inay caqabad yar ka imaado waa laga yaabaa laakiin garaab yani ganacsiga u dhaxeeya saddexdan magaalo ama saddexdan gobol oo geeska isku haayo aniga waxaan aaminsanahay in aad iyo aad ay ummadda isku wanaagsan yihiin oo raashinka iyo wax kastaba saddexda xuduud ay isu marayaan oo wax dhibaato ama caqabad saas u weyn oo hadda la sheegay aysan jirin aaminsanahay sidoo kale waxaan aragtideeda ka dhiibtay hooyo ka mid ah hooyooyinka degmada Mandheera waxayna tiri Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aniga waxa la yiraahdaa Safiisha Cali waxaan ku noolahay Mandheera East waa saas oo saas sheegto waaye hooyooyinka business badan wala dhaxmara Ethiopia Kenya Soomaali xiriir badan wala leenahay waa wala shaqaysanaa wax Allah wixii dhibaato dhaxdayna ka dhacan anaga u baaxalina aniga waxaan joogaa meel ay bulshadu ku badan tahay aadaan ugu faa'iideynaa dadka waxyaalo fara badan baan u sheegnaa marka xiriir fara badan baan leenahay anaga iyo reer Soomaali iyo reer Ethiopia xiriir fara badan aan leenahay wada shaqaysan waa wala shaqaysanaa waa business ka wala dhaxmara dhinaca gidiga Ethiopia alaab ka keensanaa Soomaali alaab ka keensanaa ayaga waa naga qaataan wax maana dhaxdayna maran ma waxda kali oo sanateen kali aan ka wala shaqaysan mala ilaa dhowr 30 sano business Soomaali iyo Ethiopia dhaxdayna aali waa dad isbaran oo ila dhashay oo is afahma aanane oo shaqadaan aad ay wanaagsan tahay hooyada doorka ay qaadan karta nabad waa wax weyn nabadana waan aad way ugu nabad qaadan kartaa dagaalkana iyada horseedi karta maxaa jira nabad waxay ugu qaadan kartaa wiilka dhimina iyada dhashay ninka dhiminaan iyada dhashay idna waa ku barakacayso waa ku guri weynaysa oo kuwa ku dad weynaysa marka nabadda hooyada aad ay bulshada dhaxda ugu jirtaa madda koobaad oo nabadda ka qayb qaadan karto hooyada marka xalkayn waa kaas annaga markii oo aroosyaha ay jiraan waa isu yeernaa waa wala fadhiisanaa horta meelaha bulshooyinka waa ka wala fadhiisanaa oo ka wala sheekaysanaa xagga waa isguursanaa dadka dhaqan wanaagana ku wala xiriir ku wala leenahay marka maanta gabar aroos laga dhisanaa laan waa isaacideynaa wiil aroos loo dhisaa dhalinyarada marka la waa isaacideynaa anna wax noo kala baxsamo ma jirto gabar iyo hooyadeedii walaal baan wala naani wax xumaan oo dhaxdaynayay ama uqudada oo dhaxdaynayay lama laha wanaag baan wala shaqaysanaa annaga dhaqanka in hore Soomaalida hore waxaan ahayn kul hore midnimo baan joognay aan ahayn oo waartaan ku wala shaqaysanayni hadda isgafataan imaada dad ay jirto haweenka kamid oo gudiyaal jirto waa isu yeernaa waan xalinaa arintayna ma gaarta ama dawlad ma gaarta ama odayaalka dhaqanka ma gaaraan anaga haween waxaan qabnaa oo gudi oo labada meelood ka shaqeeya waa wala fadhiisanaa waa wala xalinaa wanaag baan ku wala dhamaysanaa wax dhibkayna oo dawlad gaarana ma laha mas oday u gudbana ma laha waa jira ninkii naagta marka isgafaan guriyahan ku xalinaa waxyaalo kale oo maaragtay dib yar oo caruurta isgaarsid haday imaadaan gurigan ku xalinaa jiiraankayna kulli anaga waa iska warqabnaa waan is xalinaa xiriir badan baan wala leen anaga iyo bulshada dhanba aadaan ugu qayb qaadanaa anaga wax wanaagsan baan ka shaqaynaa wax xun dan noogu jirto malaha wanaag mii iyo magaalaba wanaag baan ka shaqaynaa wanaag baan horseednaa nabadana horseed baan u nahnay fariinta ugu dambaysa oo dadweynaha u sheegaya waxaa kamid ah wax Allah wixii dib oo la arko in bulshadu iyada dhaxdeeda ay xalisa dhaqan xumo kale haday jiraana waa culimo joogto culimadana aan la xiriirna dadka gudiyaasha ama dawladda la shaqeeyo oo jiifti waxaan aan wala shaqeeyna wanaag aan yeelana marka dhaxdeena wixii anaga bulshadeena dib u keenan inaan ka hortagno saas baan jecelnaa halkaas baan ku wala xiriireynaa saas baan ku salaam calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale mawduuca maanta ayaa waxaan wax ka weydiinay culimaadudiinka magaalada si aan u ogaano sida diinteenna ay u tahay shayga ugu weyn oo ummadda mideeya haddana sababa in dad badan aysan ku foojigneen muhiimadda shayada ummadda wadaagaan wuxuuna yiri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد halkan insha Allah waxaan ka dhawaajinaynaa waxyaabaha bulshada mideeya oo shariicadeen islaamka ay amartay ayaan insha Allah wax ka sheegaynaa waana waxyaabaha oo bulshada mideeya Ilaahay waa noo sheegay subxaanahu wa ta'ala nabigiisna waa noo sheegeen hadaa la raacana waa lagu badbaada oo dadku waa midoobayin hadaa la raaci waayana tafarraq iyo kala carar iyo balaayo iyo qaxr ayaa lagu jiraa waxyaabaha dadka mideeya kow waxaa ka mid ah kitaabka Ilaahay iyo sunnada in la raaco oo Ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa ta'ala wa'tasimuu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu wardadow
kitaabka wardada waa xarig ilaahay qabsada xarig ilaahay subxaanahu watacaala waa xarig dhirar badan aan go-ayni waa daa'iman abadan oo dadkana jannada geeya xarigaas waa kitaabkiiyo sunnada waaye haddaan la qabsado ummad waa midoobayiin tafaraqan way macnaha waa yaraanayaa ummaddii waa isqabsanayiin garab ay isu noqonayiin waana isbadbaadinayiin laakiin marka kitaabka laga taga oo sunnada laga taga oo diinta ilaahay dheg loo macnaha la dhegaysani waayo ayaa khilaaf iyo macnaha dagaal iyo col aas imaaday oo la aqaani jirin marka namber koowaad waxaa waaye waxyaabaha ilaahay dadka mideey wuxuu nooga sheegay inay dadka kitaabkiisa iyo sunnada nabiga ay qaataan oo ay tafaraq iyo khilaafkan iska ilaaliyaan horta waa midaas waa midda koowaad midda labaad oo dadka midays waxaa waaye dadka horta inay noqdaan walaalo waa inayna ogaadaan inay walaali yihiin oos ilaahay walaalay oos kitaabkiisa ku walaalay sunnada nabiga ay ku laaloobin waa inay ogaadaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy subxaanahu watacaala asagoo noo sheegay dadka inay walaali yihiin oy midoobaan noo sheegaya wuxuu leeyahay inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta waa walaala meel alle meelay joogaanba midka yar midka weyn kan midow kan cad kan cuuryaanka ahayn kan jirin kanan jirinayn kulli inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta walaalo waaya kitaabkaasay ku laaloobeen diintay ku walaaloobeen diintoodana waa midoo waaya nabigoodana nabigoo waaya marka walaalnimadaas islaamnimada hadday taxgeliyaan oy ilaaliyaan waay bulshada inay isqabsanaysa ayaa meesha kasoo dhalanaysa maxaa yeelay walaaltinimada markay jabtay oy hallawday oy dadkii ay macnaha ay taxgelin waayeen ayaa iskhilaafaadka ku batay marka waxyaabaha dadka miday waxaa kamid a nambarka labaad waxaa waaye dadka inay walaaltinimada ay taxgeliyaan isku xishmeeyaan isu karaameeyaan isku macnaha ay isku dhowraan ayaa la rabaa horta midda iyadan labaad waa midda u muhiimsan nafteeda walaaltinimada islaamka marka lasoo celiyo oo hadda waa dhuntay waa tagtay walaaltinimada dadka dhexdiisa waa tagtay waa guurtay haddaa lasoo celiyo waxaan qabaa inay dadka midoobayiin maxaa yeele waa sidii ilaahay aad noo sheegay waana daawo ayaa ku jirto marka waxaa la rabaa inaan qaadano waxyaabaha ilaahay noo sheegaya iyo rasuulkiis noo sheegayiin inaan qaadano nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka wuxuu leeyahay almuslim aqulmuslim qofka muslimka kan kale muslimka walaalkiisu waaya marka walaaltinimada islaamka ay imaadana waxay nagu xambaaraysaa dadka diimaha kale inaan haddana xishmayno oon karaamayno oo waxyaabaha ayaka ay caabudaan aan ku xishmay nafteeda waxyaabaha dadka miday ka mid tahay waxyaabaha dadka miday waxaa ka mid walaalayaal oo qur-aanka meelo badan lagu faahfaahiyey cadaaladda in la hagaajiyo oo cadaalad laga shaqeeyo cadaalad darri waxay keentaa khilaaf cadaalad darri waxay keentaa dagaal cadaalad darri waxay keentaa in laisfahmi waayo oo la kala cararay keentaa hataa ninkii naagta isqaba naftooda hadday cadaalad gurigaas laga waayo way kala cararayiin haddaa ninka cadaalad laga waayo haweenayd waa ka carari haddaa haweenta cadaalad laga waayo ninkii waa ka cararaa maxaa yeelay cadaaladii waa diinta laf dhabarkeeda waa cadaaladda aas-aaska dadka isu keenta waaya marka cadaaladda iyadana lagu dadaalo siday dadka ay u midoobaan ee u noqdaan walaala oo isu garabsadaan cadaaladda waxaa soo galaya qof walba meel mas-uulka marka mas-uulka loo dhiiba waa inuu ummadda cadaalad u suubiya example aan soo qaadanaynaa shaqooyinka marka la qoraayo oo countiga shaqa la qoraayo haddaa cadaalad lagu qori waayo oo cadaaladnimo la hagaajini waayo shaqada si dhab loo qori waayo oo qabiil la fiiriya oo ummaddii la kala jiida meeshaas tafaraq weyn aa ka imaadaha ilaahayna muxuu dhahay walaa tafaraquu wardada waa iskhilaafin aana kala fiirina marka cadaaladda markay ay dhunto dagaala imaadaa dhibaa imaadaa isnaceebaa imaadaa dadkii way kala cararayiin isma aaminayiin waa isxamanayiin cadaalad darada keenaysa laakiin marka cadaaladda la hela dadku waa isjeclaanayiin shaqada markii la qora waxay leeyihiin waa ognahay in lagu qori doono cadaalad ay leeyihiin marka cadaaladda nafteeda way dhuntay cadaaladda waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka muslimiinta ama qowmiyadaha kale isu keena ayay ka mid tahay markii laba qof hataa kala xukminaysiin ilaahay wuxuu dhahay facdilu cadaalad hagaajiya laba qof hadday isdagaalaan lagu keeno laba qof hadday isku dhacaan lagu keeno cadaaladda dhexdooda ka shaqaysay kanaa u hilinin naftaada shahwadaada raacin dhihinkan waa saaxiibkay dhihinkan waa qabiilkay dhihinkan waa hooyada iyo qof hadday isdagaalaan nafteeda hooyada ay ga daran tahay cadaaladda hooyada u sheeg in cadaaladda loo baahan yahay marka walaalayaal waxaa weeye waxyaabaha cadaaladda dadka isu keena oo dadka isjeclaysiiya waxay ka mid tahay cadaaladday ka mid tahay cadaaladda markii la waaya waa idin sheegee meeshaasaytii unity ma imaadaysa unity oo isku dubnaan ma imaadaysa marka waxyaabahaas iyo waxyaaba fara badanaa jira oo qur-aanka iyo sunnada lagu sheegay in dadkan isu imaadaan waxyaabaha dadka mideeya waxaa kaloo kamid walaalayaal oo la rabo inaan baranna shayga la xishmada in la isxishmeeyo qabiilada isxishmeeyaan qabiilada markii oo macnaha ay wax helaan ay isu quuraan
oy macnaha isgarab galaan nafteeda midnimada dadka ayaa ku imaada. haddaa xishmo la waaya lees xishmayni waaya qabiilkan kale xishmayni waayaan kana ay kale xishmayni waayaan meesha waxaa ka baxaysa kalsoonida baxaysa. xishmada marka waxay ka mid tahay waxyaabaha oo as-aaska lafdhabarka ah oo dadka mideeya ayay ka mid tahay. ayadana waa in lagu dadaalo sida dadkan iskugu keeno oo dadka iskugu imaadaan oo ilaahigooda ku caabudaan oo ay wax iskugu qabtaan. waxyaabaha kaloo dadka mideeya waxaa ka mid walaalayaal oo ilaahayna subxaanahu watacaala raalli uu nooga yahay dadka inay macnaha ay isgarab galaan oo kuwa tabaalaysan garabkooda la gala. maxaa yeelay nabi xadiida wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofkii qof mu'min ee muslim ee kurbahaysa ka qaada oo kurbada iyo culeysa ka qaada asagana ilaahay maalinka qiyaama kurbooyinka qiyaama ayaa asagana laga qaadi doonaa. marka haddaa dadka waxay isu qabtaan oo midka jiran oo la booqdo kan xanuunsan la daaweeyo kuwa macnaha dabka aan shidan karin dabka loo shida kuwa macnaha oo waxba aan hayni ilmahooda iskuulaha aan geyn karin iskuulaha loo geeya hakada waxaas dhamaale kulli waxaa waaye as-aaska diinteenna waaye oo macaanka badan oo sharafta leh ayna amraysaa. oo waxyaabahaas dhammaanan waxyaabaha keenay kamid tahay dadka inay midoobaan ee walaalo noqdaan ay macnaha isgarab galaan oo tacaawunku ay isu imaadaan waaye. ilaahayna wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri wataqwa wardadow alla kacabsiga iyo wanaagga isku kaalmaysta marna xumaanta iskugu kaalmaysanin walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan cadownimada iyo xasinimada iyo dulmiga iyo gardarada iskugu kaalmaysanin fiicnaanta iyo wanaagga iskugu kaalmaysta. maxaa yeeley ilaahay markuu lahay watacaawanuu cala albiri wardadow wanaagga iskugu kaalmaysta wax walba oo wanaag oo macnaha fiican oo wanaagsan dadka ula dhaqan wax walboo xun oo sharna ummadda ka reeb. waxyaabaha kale dadka mid waxaa ka mid ah dadka inay naftooda waxay la jecel yihiin ay dadka kale la jeclaadaan. tusaalaan soo qaadaynaa meelaa roob ka da-ay roob markaas da-ay qabiil hebel ama qabiil fulan ayaa meeshooda roobaa ka da-ay coosaa soo baxay biyihii ayaa macnaha meesha waraha u bixsameen. waa inay qabiilada kale ay u ogolaadaan oo ay dhahaan haye idankan walaala baan nahay diintan kula lowni bal xoolihiin meeshaa soo daaqeena biyahana isla cabnaan deeqaayin haddana ay imaada kalsoonidaas imaada meeshaasaytii waxaa ka imaadaysa dadka inay isjeclaadaan ooy garab isu noqdaan ka imaadaysa. laakiin haddaa roob markaas da-a oo biyihii ay da-aan oo qabiilkan meeshooda ay roob ku da-a warta ay u buuxsanta kuwan kale ay rabin oo iska riixayiin meeshaasaytii kalsooni ma imaadaysa cadaaladna ma imaadaysa. marka ilaahay markuu leeyahay wactasiba markuu leeyahay waxyaabahana mar ka mid ah. marka walaalayaal waxaa la rabaa waxyaabaha oo diinta ayna amraysa markii la raaca ayaa horta ay imaada dadka inay midoobaan. dadka inay midoobaan waxaa kale oo keenaya dadka in lagula dhaqmaa kalimooyinka wanaagsan. dadka markaas waxay u sheegaysa kalimo wanaagsan uu sheeg. dadka markaas waxa u sheegaysa kalimo wanaagsan ka soo baxda oo adiga aad jecesh in lagula dhaqmaa ka soo baxda. maxaa yeelay alkalima dayiba sadaqa kalimada wanaagsan waa sadaqa. hadday kalimo wanaagsan ka soo baxda dadkan kale aad u sheegaysa kalsooni ay ku qaadayiin jecel ay imaadaan meesha ay ahayd oo dadkina isu garab ay noqonayiin. haddaa laakiin kalimo wanaagsan ay ka soo bixi waayso dadkaas caynays aflagaadaynaysa ummadda aas macnaha dhib u geynaysa nafteeda uga qatar ay keenaysaa oo tafaraq ay keenaysaa. waxyaabaha kale dadka miday waxaa ka mid walaalayaal dadka inay qabiil u kala bixin dadka inay u kala bixin qabiil dadka waa kala fogeeya waa aragteen. hadda maanta gobolkaan degannahay oo gobolkan waqooyi bari dadka waxyaabaha kala deli oo qabri kala geli oo kala gubi oo kala deli waxaa waaye qabyaalad waa qabiilka ilmihii waa galay aninkii waana galay culimadii waa galay masaajidii waa galay dugsiyaalkii waa galay gaaridii takaasilayta qabiilaa galay wax wal meel walba qabiil ay noqotay shaqadii qabiil ay noqotay markii oo kabrul aada macnaha waxay qabiil ay noqotay markii macallimo la qoraa qabiil ay noqotay markii oo bad hataa gaari raaca oo safar la aada qabiil ay noqotay. qabiil dadka waa kala dilaa waa kala geeyaa laakiin maalinkii dadka ay qabiil iska ilaaliyaan meel iska dhigaan ilaahay ugu baqaan midnimadooda imaadaysa ogaadeena midnimadooda ayaa imaadaysa. iidan waxaa waaye qabiilka waxyaabaha dadka la dilay kamid tahay. maanta mandheera waa ogtiin xaaladii meeshay marhays inaan kala tagnay oo aan kala dhaqaajin waa ujeedin oo taasna waxaa sabab u qabiil waaye alqabaliya ayaa keentay. qabiil in laisku dilaa imaadaysa markii oo qabiil qalbiga la geliy in laisku dila laisku laaya dadka ay qabiil u kala go-aan. hadda sida maanta hayso waa laba qolo mar walba isku boodi oo gurimaha iyo baangadaha iyo qoriga iyo hubka lasu qaadana waa aragteen qalbiga laga saara baashan. yaa ayuha nnaas inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu looga talagalay in laisku barta laisku aqoonsada bas looga talagalay wax kale in laisku dila laisku laayo lagu kala go loogama talagelin. marka
waqtigii lisiyaa kulley mar aad u yaray waqtigiin aad buu u gaaban yahay marka dardaarankaas oo diinta iyo shareecada iyo aqwaashaas dhammaal aan soo gurini markii la raaca khulaastul qowl waa midnamaa imaadaysa haddaa la raaci waayo soo maaha reer Mandheerayo midnamaa sugina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddaba haddii ay sidaasii tahay sidee bulshada ugu faa'iidaysan kartaa waxyaabaha ummaddeenna ay wadaagaan oo aan la buunbuuninin? bulshada ayaa ku jawaabay sida tan. waa tahay dhegaystayaal, barnaamijkeenna maanta halkaasi ayaan ku soo afmeeraynaa. maanta waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey hay-adda Agency for Empowerment of Pastoralists AFOP oo taageero maaliyadeed ka helaysa mashruuceeda Deris Wanaag. ilaa iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mida, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.